guddi ka socotay xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa kulan ay u qabteen cuqaasha gobolka Togdheer waxay kaga doodayeen qaabka loo soo dooran doono xildhibaanada golaha guurtida doorashada soo socota waxaana kulankaasi ka soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer iyo xildhibaano ka tirsan golaha guurtida iyagoona faahfaahiyay kulankani sidoo kale waxayna halkaasi fikirkooda ka dhiibtay qaar kamid ah cuqaasha gobolka Togdheer waxa maanta farxad inoo ah inaynu xafladan ama kulankan la yeelanayno golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaas oo ah xog ururin ku saabsan habka loo soo xulan doono golaha guurtida ee inagu soo socda ka dambeeya golaha nimka fadhiya taasoo ay aad ugu mahadnaqayo golaha guurtidu in ay dadweynihii ay xilka u hayeen ay ku soo celiyaan ra'yigoodu wuxuu yahay maxaa lagu dooranaya mareeraa lagu dooranaya ma gobolaa lagu dooranaya ma si kale loo dooranaya ma sanaaduuqsa baarlamaanka loo dooranaya wax badan baa dee la isweydiinaya aad baan ugu mahadnaqaya golaha guurtidu waa hay-adda dalka ugu sarreysa waa hay-ad abaal weyn ku leh marka waxaan idinka codsanayaa haddaad tihiin cuqaashii gobolka Togdheer siday maroodi jeex uga soo qabteen ee sida hufan ay ugu soo dhamaatay siday saaxil u soo mareen ay sida hufan ugu soo dhamaatay inayna kana maanta oo halkan laga yaabo in dooro ka shaqeysaan in ma taqaana ula shaqeysaan waxa idin hor yaala su'aalo ku saabsan arrinta aan doonayno inaanu xogteeda helno isweyntiintu ma dhamaato laakiin intii nuxurka lahayd baanu ka soo qaadnay oo aan leenahay bal talo tusaalo war la helayaaba talo la hel soo meedan odhan jirin marka warkaa la helo ee la soo wada ururiyo in badan baad tidhaahdeen kuraasta waa ku raagteen waa dhab waanu ku raagnay laakiin duruuf iyo nolol iyo dalka halgankiisa iyo xaaladka maalin walba inuu soo wajahayay baa abuuray taa maanta aynu daba soconaana waxa weeyaan cuqaalahaan iskeen soo hor fadhiisisay habka Soomaaliland ku soo caaramaashay ee tala qabeenka ahaa bal in la iska weydiiyo maadaama waqtigii goluhu haddii golahan golo bedelaya yimaado waynu ognahay golayaasha kale doorashooyin aad ogtihiin baa dhaca waa doorashooyin toos ah kuyu dadku galaan xisbiye ka soo baxaan golaha guurtidu xeerarkii doorashooyinka birigii dhaweyd la sameeyay marna ama doorashooyinkii dhacay lama dhicin qaabkooda oo kale labada goor ee golaha guurtida la soo habeeyay oo muu dhicin sida kuwa kale loo doorto oo uu ka duwanaa anagu waxaan u arkaa anigu ra'yigayga waxaan u arkaa hadday golo shacab tahay laba inay golo xukuumadeed noqoto sharci loo sameeyo kow inay soo noqoto ama cuqaashu ha badata ama yaraan ha badatee golo shacab laga dhigo oo aqoon iyo waxgarad lagu xidho dhaxalkana laga daayo anigu taasaan u arkaa in lagu soo celiyo shacabka in lagu soo celiyo cuqaasha inay cuqaashu soo doorato madax dhaqameedku soo doorto cid waliba iyadaa rafadkeeda ku keeninin loona sameeyo sharci qofka looga baahan yahay horta waa dhaqan waa dawlad waa talo reerkii laba lahaaye markii hore labada caaqla ay soo saareen ninka odayga ah ee golaha guurtida noqonaya hadduu maanta toban yahayna iyagu baa xil ka saaran yihiin in iyagii lagu soo celiyo oo gacanta shacabka lagu soo celiyo oo gacanta odayaasha cuqaasha lagu soo celiyo ayaa ninka horta kala midaysanahay ra'yiga labaad ee aan raacin lahaa waxa weeye ay balanbiiga ahi in gobol laga dhigo gobolaysi laga dhigo gobol walba maxay haytooy inta uu leeyahay lagu soo celiyo gobolaysi laga dhigo Mahad Cali Goodir Ariel TV Burco